dalkeena Soomaaliya wuxuu 30 sano ka wada sinay dabaaldega 30 sano lagu qaybsanaa balse waxay noo bilaabatay 30 sano cusub sida wada ogsoonahay koonfur iyo waqooyi 30kii ugu horeeyay Hargeysa iyo Muqdisho waxaa laga tagay calan lagu midaysan yahay ee ah calanka xagga sare ka muuqda 30 sano aynu soo dhaafnay koonfur iyo waqooyi gaar ahaan Muqdisho iyo Hargeysa waxaa ka tagnaa calan laba calamo oo kala duwan 26 Juun waxaa loo dabaaldegay waqooyi wuxuu u dabaaldegtay 26 Juun halka koonfurna u dabaaldegtay 26 Juun iyo 1 Luulyo maadaama 30 sano wada jirnay 30 sano aan kala qaybsaneen 30 sano oo inoo bilaaban doono ma waxaan ka midaysan doonaa dabaaldega labada maalin miisaan ku qaybsanaan doonaa waa su'aal in la isweydiiyo mudan haddii aan rabno inaan helno gobollada naga maqan haddii aan rabno inaan helno dadka Soomaaliyeed ee naga maqan waxa hormuud u ah labada gobol ee koonfur iyo waqooyi oo midooba sidaan ogsoonahay waxay naga maqan dad Soomaaliyeed dhul Soomaaliyeed oo ay haystaan gumaysta darisna la ah sida NFD iyo Soomaali galbeed sidaan ogsoonahay dalkeena Soomaaliya waxaa laga buriyay Portugiis Faransiis Talyaani Ingiriis iyo Mareykan ugu dambeeyay xilliga 90-meedii intaas waxaa ka buriyay dad Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed iyo aabbo Soomaaliyeed iyo dhalinyaro u istaagtay inay dalkooda dadkooda xornimo ku noolaadaan waxaa nasiib xumo ah inay maanta haystaan dad anaga inaga liita dad anaga maqaamkeena iyo qiimkeena aan ka sareyno dad mar walba anagu ahaan jirnay hormuud dad anaga wax walba u tilmaami jirnay oo ah dalalka dariskeena la ah sida Kenya iyo Ethiopia inay haystaan dhulkeena iyo dadkeena runtii aad baan ugu xumahay waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada maanta dal iyo dibad ku nool waxaad tihiin energy-ga xornimada waxaad tihiin kuwa soo celin lahaa shanta Soomaaliyeed waxaad hormuud u tihiin dawladnimada waxaad hormuud u tihiin asalka xornimada shanta Soomaaliyeed waxaan qof walba oo Soomaaliyeed aan xasuusinayaa haddii la rabo inaanu ku noolaano nabad haddii ay rabaan inaanu ku noolaano xornimo haddii ay rabaan inaanu ku noolaano nolol kala duwan waxaa hormuud ah inaynu nafteena iyo maalkeena aynu horno si aan u helno shanta Soomaaliyeed oo midaysan marka waxaan ku soo gabagabeynayaa hormuudka midnimada waxaa asal u ah koonfur iyo waqooyi oo gacmaha isqabsada waxaan leeyahay labada koonfur iyo waqooyi midnimadu waa xoog kala tagana waa hoog waxaynu sugaysaa inaanu soo dhicinno dadka iyo dalkayaga ee aan haysan xorriyadan maanta u dabaaldegayno waxaynu sugayso dadka Soomaaliyeed oo malaayiinta iyo dhulalka intaasoo kiiloomitir square ah inaynu ku noolaadaan xorriyad mid ka qiimo badan oo aynu maanta u dabaaldegayno waxaan leeyahay cid walba aynu ka qayb qaadano horumarka aynu ka qayb qaadano sidii aynu ku soo celin lahayn shanta Soomaaliyeed wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh